السلام عليكم أصحابتا وايدين سلامي أبشر فيتنس سو دواada mar kale muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku siiyo 2 tips aad ku samayn kartid fat breakdown ama fatka aad ku burburin kartid kama hadlayo hadda qof oo caataynaya miisaan rida kama hadla waxaa ka hadlaya qof asag oo rabo miisaankiisa asagoo sidiisa yahay inuu fatka burburiyo uu sameeyo waxa la dhaho body recomposition yani miisaankiisa sidiisa uu ahaado bodygiisana uu isbedelo maaragtay fatka ka yaraado masal uu kordho marka number 1 horta waxaad samayn doontaa mar walba horta calorieski maaragtay maintenance calorieski cuni doontaa because miisaankaaga meeshiisa ku ilaalinayna kaliya waxaa rabnaa inaan fatka burburin marka waxaa rabaa two things inaad samaysid number 1 waxaa kaa rabaa cuntada aad cunaysid gymka ka hor waa inay noqotaa ay ka koobnaataa fats iyo protein sababta aan u samaynayna waxay tahay waxaan ognahay primary energy sourcega ama energyga ugu horeeya uu isticmaalaya jirka inay tahay carbohydrates sida darteed maadaama jirka carbohydrates uusan ku jirin isla markii maaragtay jirka fatiska uma bedeli karo energy iyo protein isla markii energy uma bedeli karo sida darteed wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu isticmaalo fatki kaydsana that's one tipka labaad aan ku siinayo waxay tahay habeenkii haddana markii aad seexanaysid cuntadaada ha noqoto protein iyo fat sababtuna waxay tahay habeenkii marka aad seexanayso neeftaas adiga hurdada ka bixiso calories badan ayaa isticmaali doonta because hurdada calories badan ayaa lagu isticmaalaa sidaa darteed marka ma rabno intaa jirkaaga inuu gubo carbs ma rabno ee waxaa rabaa inuu gubo fatka jirkaaga ku kaydsan ma fahmaysaa marka maadaama haddana carbs aysan jirka ku jirin waxaa gubi doonaa fatiski kaydsanaa marka goormay cunaysaa carbiska ma iska daynaysaa maya carbiska ma daynaysa because jirka u baahan adiga dhanay active ka dhigan so carbiskaaga in the middle of the day ayaa ka dhigi doona so basically waxaa kaa rabaa inaad cuntid marka 4 meals 2 meals with fats protein 2 meals and then protein iyo carbs intaas ka kooban that's simple marka qaabkaas ayaad dejin doontaa waxaa cunaysaa cuntadaada koowaad waxay ka koobnaan doontaa so basically waxaa kaa rabaa marka cuntada koowaad ka dambe inaad training samayso cuntadaada koowaad ka koobnaato fats iyo protein for example ukun iyo lows oo kale hadday ka koobnaato omelette iyo lows oo kale taa ku quraactid then markaa gymka imaad markaas waxaa kaa rabaa carbs iyo protein inaad cuntid maxaa la dhahay rice with chicken ama maaragtay potatoes sweet potatoes with chicken iyo qudaar inaad cuntid other mealka cuntadaada kalena haddana saas oo kale camal inay u ekaato last mealka habeenka haddana markaa seexanaysan haddana fats iyo protein ka koobnaato for example avocado iyo chicken ama avocado iyo maaragtay ukun something like that you see markaas waxaa dhici doona mar walba jirkaaga wuxuu samayn doonaa fat breakdown especially markaad train gareyn doontid jirkaaga fat breakdown ayuu samayn doonaa habeenkii intaad jiiftid haddana jirkaaga wuxuu samayn doonaa fat breakdown sidaa darteed miisaankaaga oo sidiisii ah haddana waxaa samayn doontaa body recomposition guys waxaa rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen tipskaas 2 tips they are very important haddii aad raadinaysid program science based ah because tan waxay kuu muujinaysaa meal timing waxaa la yidhaha cuntada waqtiga la qaadanayo muhiimadda ayaa leedahay kuu muujinaysaa so haddii aad raadinaysid program isku base gareenaya cuntadaada waqti walba cunto kastoo ku habboonad ah waad ila soo xiriiri kartaa I have both VIP coaching sidoo kale iyo regular coaching oo aan ugu talagalay ardayda iyo dadka aan afford gareyn karin haddii aad rabto VIP coaching aad u baahan tahay daily motivation si daily in lagaaga warhayo ayadana waa ila soo xiriiri kartaa VIP coaching see you guys in the next video